cabdinuur macalin xasan gudoomiyaha xisbiga sinaanta cadaalad iyo xurriyadda laantiisa dowlad-deegaanka Soomaalida oo maanta wareysi gaar ah siiyay 5TV ayaa ka warbixiyay ujeedka loo sameeyay xisbiga waqtigii la sameeyay iyo sidoo kale waxyaabaha uu kaga duwan yahay asxaabta siyaasadeed ee ka dhaqdhaqaaqda deegaanka Soomaalida. Gudoomiyaha ayaa sheegay in xisbigu yahay heer qaran sidoo kalena ay ku loolamayaan in ay qabtaan hoggaanka dalka iyo kan deegaanka Soomaalida. waan salaamayaa dhammaan baahda saxaafadda gaar ahaan 5TV waxaa kaloo salaamayaa dadka af Soomaaliga ku hadla meel walba ay joogaanba guud ahaan si gaar ah waxaan salaamayaa dadka deegaanka ku nool waan iyaga mahadcelinayaa booqashada saaka nagu soo booqateen xafiiska ayaga waxaa la aasaasay xisbigan sinaanta iyo xorriyadda ama Freedom and Equality Party 2011 taariikh tirsiga dalka Itoobiya afkaartiisuna waxay ka soo bilaabatay xilligii hore dawladii guud dalka oo dhan maadaama caqabado ay jireen in la helo xisbi federaal ah oo deegaamada oo dhan ka jira oo dalka oo dhan ka jira oo saamigiisa la wada leeyahay oo muxuu ahay cid walbaba ay ku leedahay xaqi iyo xuquuqda ay ku leedahay isla markaana la dharaaf gareeyay xilliga ayada aan qoraalkiisa oo baahidii markaa jirtay lagu saleeyay iyo deegaan kasta baahidiisa gaarka ah halkaas buu ka soo bilowday marka waxaa la arkay marka dadka aqoon-yahanka ah ee dalka ku noolaa wana nagu qayb ka ahayn in aynan u horseedi karin dalka qaybahan kala duwan ee iska bardahaya inaynan wax haddii la bedelo balanbi unan olin baa la isla arkay marka si guud halkaas marka fikirkiisu ka imaaday iyadoo qayb laga ahaa dulmiga dadka diidanaa ee dagaalamaya halganka ku jiray yaa haddana waxaa loo organize gareeyay si guud dalka oo dhan maadaama caqabado ay jireen in la helo xisbi federaal ah oo deegaamada oo dhan ka jira oo dalka oo dhan ka jira oo saamigiisa la wada leeyahay oo muxuu ahay cid walbaba ay ku leedahay xaqi iyo xuquuqda ay ku leedahay isla markaana la dharaaf gareeyay xilliga ayada aan qoraalkiisa oo baahidii markaa jirtay lagu saleeyay iyo xisbigu ma aha xisbi local ama waa xisbi national level ah ama waa dalka oo dhan buu ka jiraa kaliya xafiisku wuxuuna ka furayn deegaanka Tigray ayuu xisbigu hadda wuxuuna ka dhaqdhaqaaqin taasna gaabka jiray wuxuu ahaa iyada ayaa muxuu ahaay si gaar ah ayuu xilligii la furi lahaa way jireen taageerayaal wayna jireen dad oo matala laakiin xafiiskii la furo ama ay doorasho ka dhacdo hadda deegaanka Tigray uuna ka jirin inta kale dalka meel 100% si fiican ooga hana qaaday sida caasimadda oo kale sida gobolka deegaanka Oromiyo kale xisbi marka la aasaasayo waxyaabo ay u taagan yahay yoolashiisa waxaa kamid ah kow in uu ka badbaado dadku waxa la yiraahdo qowmiyadda ama waxan caadifada reerka ama qabaliyadda tan si kala dhigno qabiil ma qabaliyadda inuu ka badbaado oo mabda lagu midoobo mabda marka wuxuu ka duwan yahay waxa si hooseeya ee qabiilka ka si hooseeya qabaliyadda la yiraahdo marka waa afkaar iyo mabaadi iyo aragtiyo iyo hadaf lagu midoobay oo la rabo in dal iyo deegaan loogu adeego horta marka koobaad xisbi marka la leeyahay saas u taagan yahay ma aha wax lagu ganacsado mana aha wax oo benefit laga raadiyo mana aha wax qaab kala duwan iyo ideology kale loo isticmaalo marka waa marka koobaad saas u asaasan yahay marka labaad wuxuu u asaasan yahay in uu sameeyo wax bulshada u dana macnaheedu waxa weeyaan tusaale hal xisbi baa jira halka xisbi hadii uu waayo wax doorasho la gala oo garab istaaga hadii doorasho maxaa laga qaban wax laga qabtaa ma laha marka waa inuu jiro xisbi talahaya iyo xisbi doonaya inuu la tartamo talada ka qaado hooyada guriga joogta hadayna xorriyad u helin gurigeedii oo ay ciriiri dareento waxyaabo badan bay markaa sameynaysaa oo khaladaad marka waa inuu bini aadamku helo waliba qarnigan 20aad waa in la helaa xorriyad dhameystiran oo uu ilaahay tii uu dadka siiyay bini aadamku ma kan xorriyad ilaahay ba xorriyad sameeyay xorriyadda marka waa wax shakhsi ah oo bini aadamku leeyahay oo sida uu nolosha u rabo iyo xorriyaddan u rabaa marka wax gorgortan gali karta ma aha xorriyaddaas baan marka anagu u taaganahay waa qodobka koobaad anagu
xisbiyada waxaan kaga duwanay wuu jiraa leeyahay xisbi walbaba wuxuu ka kale kaga duwan yahay ayaa jira waa marka koowaad BB marka laga reebo waa xisbiga kaliya ee dalka oo dhan ka jira ayaa la oran karaa xisbiga yagan labo waa xisbiga xeeroosaadkiisa iyo programkiisa ay la wada leeyahay ee Soomaaliduna ay soo qoratay qolo walbana ay soo qoratay markaana saa lagu sameeyay waliba waxa la oran karaa gacanta ugu weyn Soomaaliya leh aqoonyahanka ugu faraha badan ee qoray programkiisa iyo politicalkiisa dajiyay Soomaaliya kamid iyo xeeroosaadkiisaba waxa kale oo kaga duwanahay axsaabta anagu qalin ku dagaalan baanahay qalin baa wax ku raadinayna wax la qoray ayaan rabnaa inaan soo bandhigno tusaale waxa jirta dastuurka ama dalka waxyaabaha uu ogol yahay waxa kamid ah degmo wax la yiraahdo degmadana waxa loo ogol yahay khayraad inta dhan wax la yiraahdo ama meel noocaas ah istiraatiijiyad noocaas ah ku taalo waxaanu ku dagaalamayna anagu oo kaga duwanahay axsaabta kale inaan dhulkii soo tira koobno si sax ah dadka iyo deegaanka hadda waxaanu gacanta ku haynaa 486 kilomitir oo isku weera oo degmo lahayn deegaankeena maxaad ii qaban ila ruuxan waa dirsanaysaa waa adeeg waxa rabtaa inaad cod kaaga siiso maxaad ku aamini dadka ilaa halka la soo gaarsiiyo anaga hawl badan baa noo taala marka ahdaafta noocaas ayaa kaga duwan axsaabta waxa laga yaabaa qaarkood inay ku fikirayaan inay xildhibaan u helaan inay helaan inay 5 sano soo socoto ay xukuumadda soo dhax galaan haddaanan helin iyo haddaan helaba anagu waanu isku mid barnaamijka ayagu isagana ma taaban karo nabadgeliyaan haysanaa dhammaystiran dadaalkan waa laga qaybahayo markii isbedelka la sameeyay qayb baa laga ahaa nin walba dhinac halganka kaga jiray geesta kale gudoomiyaha oo hadalkiisa sii wata ayaa ugu baaqay asxaabta siyaasadeed iyo sidoo kale madax dhaqameedyada in ay u heliyaan shacabka maadaama ay yihiin codka shacabka rayidka ah walaalayaal waxaan leeyahay axsaabta BB-na ugu horeysanaguna aan ku jiro oo nalifna ha ku jirto axsaabta deegaanka ka dhaqdhaqaaqda nin walba mabda'a waxa ahaado bulshadan ilmaha aad dhali doonto sida uu noolaan hayo sida uu maanta u nooshay kaliya inaan laga fakirin ayaan ku talin lahaa odayaasha iyo salaadiinta garaadiyada malaaqyada wabarrada dadka waxaan oran lahayn dhaxdhaxaad ahaada idinka ka sareeyay dawladda iyo xukuumad iyo xisbi labadu intuba oo sabay joogan maanta arrin baa taagan abaar baa jirta habeenho saddexaad waxaan aniga indhaha saaray markay ahayd 12:25 daqiiqo oo habeenimo ari la goorinayo biyo la raadinayo oo 1:23 ka badan ayaan anu indhaha iga saaray baahi baa jirtay dadka hoos ugu dhaadhaca u damqada taariikhda ayna xusi doonta bari baad ka tagisaan meesha hamoodina inaad awood maanta aad haysaan bari ay jiri doonto marka nin walba meesha aad joogto sumcad kaga tag magac kaga tag sharaf kaga tag waxaad qaban kartana qabo ayaan leh Cabdiraxmaan Xaashi 5TV Jigjiga